عثمان muddo 3 أسبوع ka hor ah ayaa waxa ku dhacay xanuunka loo yaqaan afqalooca. dhegta waa nadiif waxda wasaqdana kuma aragno. Waa anigoo ah Dr. Axmed Cabdi Cismaan dalka dibadiisa wax ku soo bartay dalka Russia kadibna dib ugu soo noqonay dalka kana furnay mid ka mid ah cisbitaalada ugu caansan magaalada Muqdisho. waa kuma Axmed qofka ku aqoon. haddii aan isbaro asxaabtaada iyo bulshada Soomaaliyeed magacaygu waa Dr. Axmed Cabdi Cismaan dhakhtarka cudurrada guud iyo cudurrada carruurta ahna agaasimaha Samakaab Clinic. Okay, xaga wax barashada ku qaatay jaamacadeed. jaamacadda waxaan ku soo bartay heerka koowaad iyo labaad dalka Russia kadibna dib ayaan ugu soo noqonay dalka. Imsa sano furantay Samakaab. Samakaab goordhow waxay jirsan doontaa 10 sano insha Allah September ayay buuxinaysaa muddo 10 sano ayaan magaalada Muqdisho ka shaqeynay. bukaankani magaciisa waa Cismaan muddo 3 أسبوع ka hor ah ayaa waxa ku dhacay xanuunka loo yaqaan afqalooca. halkan buu noogu yimid daaweyntiisa ayaan bilownay oo ay ka mid tahay in loo sameeyo physiotherapy. marka saad hadda arkaysaan dhakhtarka wuxuu ku howl jiraa jimicsigiisii oo daaweynta ah. Magaha Osman is here. Palsy patient. One side is weaker than the other. So Osman cannot close one eye, blink one eye, cannot complete a smile, cannot make facial expressions such as complete facial expressions. So he's here for physiotherapy. This is the 4th session and we treat Bell's palsy. It's doing better than the first day. So what we do here, we put on a TENS machine. We use TENS machine on the weaker side. Then we use heat, massager, and exercises, face exercises, and it feels good. So what I'll tell Osman is to blow air. Do you see it's weaker? I can tell Osman to smile. Can you smile? You see this side is weaker. I will tell Osman to blink that eye of that other side. Osman is unable to blink the eye of the other side. That's Bell's palsy. We treat here at Samakaab Clinic. Me as a physiotherapist, Emmanuel Mwanzi, we have treated many patients and they have gotten well and he will also get well. He will also get well. I'll tell my brother also to lift eyes up. You see, lifting this side does not lift. dadka xanuunada ku dhaco stroke ah ama xanuunada neerfaha ah waxay u baahan yihiin wax la yiraahdo rehab. So marka Samakaab Clinic waxaynu leenahay physiotherapy and rehab center oo aynu dib ugu shaqaysiino u tababarno qofkii ha noqoto murqihiisa sidoo adkaan lahaayeen socodka uu dib u baran lahaa hadalkii oo kale taasi ayay aad uga caawinaa dhanka physiotherapy-deena. carruurtaasi waxaa la yiraahdaa cerebral palsy waxaana ay ku dhashaan waa ilmaha kafka ku soo raago. ilmaha markii kafka ay ku soo raagaan waxa ku dhacaya oxygen la'aan. ilmihii markii ay dhashaan waxay la dhalanayaan in xubnaha jirkooda sida la rabaysan u shaqeyn kareenin. sidaas la mid ah xanuunka qalalka kale lagu arki karaya. marka waxay ka mid tahay daaweyntii in loo sameeyo physiotherapy ilmaha cerebral palsy waqtiga aynu sameynana 20 daqiiqo way ka badan tahay oo waxa weeye ilaa saacad bay qaadataa physiotherapy inta la sameynayo. Good. So as you walk, you mirror. Okay? Okay. Good. Yeah, good. Yeah, good. Good. Carl. James. Okay? maxaa ka duwan tahay dhakhaatiirta kale? run ahaantii isbitaal Samakaab waxaan u nahay referral dhammaan geyga Soomaaliya xanuunada dadka u soo rito stroke ama faaliga sida loo yaqaano iyo xanuunada guud ahaan neerfaha ku dhaco. sidaas la mid ah Samakaab Clinic waa isbitaalka ugu horeeyay burburka kadib hirgeliya inuu sameeyo endoscopy oo ah tubada gudaha loo dhaadhicinayo lagu ogaanayo gaaska sahashana in cad laga soo qaadi karo qofka baaritaan loogu sameeyo. sidaas la mid ah waxaan aad iyo aad ugu dadaalnaa in bukaanka waqti badan aan siino si ay
guungaar fiican looga gaaro diagnoskiisa. aniga magacayga saalax cabdulle warsama la yidhaha naanaysteedana saalax baanay waaye meeshaan waxaan imid oo iigu horeysay xilli laga joogo 9 sano habeenada ka mid xilligaas ayaan xanuunsaday isbitaalkaana lay soo qaaday waa lay keenay markaasna dadka kale ma aqoon koomaan ku jiray lugii gacanna way dhacsanaayeen maalinkaas 20 casho markaan joogo ayaa caadi noqday caadi dhakhtarka markaa idaaweeyey samakaab bolon kliniga oo ahay ninkaasaa idaaweeyey maxamed cabdi cismaan cosoblaa idaaweeyey kheyr allah siiyo xilligaas ilaa haddana waa socdaa jirada igu dhacda aniga oo lugii gacanta ah cidii ku dhacdo ka fakada waa yarya dadkii ka fakadaan kamida noqday dhakhtarkayguna ninkaasuu ahay ilaa yoomalhaadana asaa la jooga 9 sano ilaa yoomalhaada. halkani waa farmasigeena waxaynu ku dadaalnaa in farmasigeena daawooyinka aynu ku iibinayno inay noqdaan kuwa tayadooda aan hubinay standardkooda ay la jaan qaadayaan kuwa caalamka. qofka dhakhtarka u qortay recept xagga way malaya xaggan ka qaadanaya ha waxaanu ku shaqeynaa qaab system ah dhakhtarka markuu daawada soo qoro qofkii bukaanka ahaa waxaa laga arkayaa qaybta farmasiga computerka ku soo dhacaya marka dawada degdeg loo daawada la siinayo. midda kale sharciga noo yaala waxay tahay daawada qof aanan haysanin warqad uu dhakhtar soo qoray kama iibino daawooyinkaas si aan ugu taxadirno caafimaadka iyo badqabka si qaldan aan loogu isticmaalin daawooyinka. xagga emergency-geena waxaa ku qaabilnaa bukaanada xaaladaha degdega noogu imaado waxaa shaqeynaa 24 hours 2 maalmood. soo ogtahay ciyaalka yaryarka xagga furaashka marka tagaan iyagoo yaryar isku kaajiyaan si ama aan dhaho af Soomaaliga isku kaajiyaan maxaa macaawisan ciyaalka waa sidee run ahaantii isku kaadinta ama gogasha markuu qofka uu qoyayo soo ogeyn uu jiifo ma lahan da ma lahan rag iyo dumar waxa dhici karaysa geediyo inay ilmo yaryar isku kaadinayaan laakiin dad waaweyn ay isku kaadiyaan. xarunteena samakaab waxay ka mid tahay waxyaalaha ay aad iyo aad ugu caan baxday oo ah daaweynta iyo la talinta isku kaadinta carruurta iyo dadka waaweynba. okay dawooyin iyo therapy basisan waxaa jira dawooyin aan siino sidoo kale waxaynu uga sheekeynaa sida ay u sameyn karaan Kegel exercise wax loo yaqaano oo ah in pelvicada muscleskaasi sida uu adkeyn lahayn. dadka waa nadiif waxa wasaqdana kuma aragno ma sha Allah waaye wax cabasha oo dhagaha ka jira maajid xaggooda maqalka ani ma isticmaali geedkan lagu nadiifiyo 6 bilood mar walba dhakhtarka dhagaha mata waa laga nadiifiyo waagi hore waxaan gelin jiro deetana infection suufka badana infection sababa ma isticmaashaa headphone samaacada marka editing kan maadaama uu bukaanka isticmaalo samaacada tira badan samaacaduhu waxay sababaan in hearing loss uu sababo codku way yareeyaan sida neerfaha hearing loss jirto oo sababi kara neerfaha fariinta qaad waxaan jeclaanahay markii aan bukaanka u sameeyno audiogram si aan u ogaano awoodda maqalkiisa iyo leegta marka geedka waxa weeyaan signal aan ku soo diraya signalka marka aad dareento waxaan ka doonayaa in gacankaana ku dhiiba halka aad dhagsiiso si loo ogaado maqalkaaga intuu leeyahay awooddiisa. anigu magacayda waxaa la yidhahdaa cabdulla sanay cumar cabdi wacays isbitaalkan samakaab clinic waxaan xiriir la lahaa muddo 10 sannadood ah waxaa ugu dhacay cudurka neerbaha hurdo ayaan waaye muddo dhakhtarkan uu imi waa muxuu ahaay alxamdulilah ilaa maanta xiriir ayaan la leeyahay cudurkii waa layga daweey gastrik urjina ugu dhacday ayadana ilaahay baa dawo leh waa layga daweey waxaan ugu imid dhakhtarka neerbahana wuxuu ahaa maxamed cabdi cismaan cusuble dhakhtarka gastrigtana wuxuu ahaa axmed cabdi cusmaan cusuble intaba ilaahay baa dawo igu diray waa dawoobay marka waa adeeg hufan oo bulsho ayay dhakhaatiirta meesha ku hayaan waxaan dhihi lahaa uun hawshaas ilaahay maaragtay ha ku guuleeyo ilaahay ha ka abaalmariyo
ayaan mataqaanaa ayaan kusoo qatimi lahaa. أنا هذا أنا كاستمر معناته يمنيو نمبر كوستو مركز نيس ولا بني مرصد حنيس ولا بني وسيد run ahaantii geediyo waxaa jira bukaano ilaa iyo 6 bilood ka badan ba inala socdo haddaba waxay ku xiran tahay dhakhtarka isagoo eegayo baahida bukaankaasi in numberka koowaad markuu goosto inuu labaad iyo saddexaad visitka labaad iyo saddexaad ba inay u tahay wax free ah iyo in ka badan ba sidaas lamida inta ka shaqeysa isbitaalka Samakaab dhexdiisa hal number uu qofka soo goosto ayaa waxa dhici kareysa inuu dhakhtarkii kula kulmo cudurrada guud oo macnaha magaaska lagala taliyo inuu dhakhtarkii ku arko dhagaha inuu ku arko dhakhtarkii wadnaha waana hal number oo ku dhex wareegaya isbitaalka dhexdiisa هل نمبر كوسريا وحولنا بوق ha hadba marka dhakhtarku uu tago tusaale ahaan anigu waxa ii iimaanay bukaankaas aan arkay waxaan arkayaa inuu u baahan yahay consultation cardiology ama wuxuu u baahan yahay consultation oo dhakhtarka ENT-ga ama dhakhtarka neerfaha isla markaaba waxaan usii gudbinayaa bukaankaasi dhakhtarkii ahayd inuu howshiisa ka qabto qaybtani waa qaybta dhiiqaadista iyo shaybaarka halkani waa laabki waxaynu sameynaa shaybaar dhammaystiran ninkan waa supervisorkeeni Peter Welcome to Saibar. welcome to shaybaar Our lab. Okay, so you do all tests. We do all investigations and tests. Feel free and welcome. haddana qaybta wadnaha kusoo dhawow dhakhtarkeena cardiologista Maxamed Ismaaciil waxaan rabaa check up routine hadda ka hor isbitaal ma tagtay dhanka wadnaha ma tagin soo ma insha Allah soo dhawow waa ku sameynaa check up geedsan waxa waaye wadnaha hadda fiirinay ma sha Allah waxa waaye waa no congenital heart disease oo hadda waxa duleela kuma aragno waxyaalo lagu dhasho infection ma jiro dhanka wadnaha waxida ka xiran ma leh magacayga waxaa la yiraahdaa Xaawa Xasan Nuur Cali gaas ma aad iyo aad oo la darnaa oo ii hayay dhaqaatiir aad iyo aad u fara badan baa soo maray aad iyo aad qaar sokor bay ugu sheegeen daawo sokoreed bay soo qoreen qaw dhiig kar daawo ay soo qoreen ugu dambeyntii Ilaahay mahadiis waxaa imaaday isbitaalka Samakaab baan imaaday oo Muqdisho ku yaala waxaan u imaaday dhakhtarka fadhiyo oo la yiraahdo Dr. Axmed baan u imid Ilaahay mahadiis jee way wareystay dhaqaatiirtan soo maray buu iga wareystay baaritaamadeedii waa arkay jeekin dhammaystiran buu igu sameeyay tubo gaas buu igeliyay oo afka ah ayuu igeliyay calooshayda dhibaano tiro badan baa laga helay boogo ay samaysay dhiig roor xanuun tiro badan baa iga hayay maca farriyaha afka hunguriga waxa dhan waa xanuunayeen tubada waxay soo sawirtay halkaas oo aad ii xanuuni jirtay meesha oo hunguriga dhanka bidixda ah baal xirshada caloosha meelii iga xanuunaya dhan dhamaanteed tubada waa soo sawirtay daawayra xadidan buu siiyay daawadaydaasaan qaatay ilaahay waa igu caafiyay ilaa 6 bilood markaan daawada qaadanaya guriga toos uga shaqaysanay meeshaan rabana waa aaday adimadeeda ku socdo ma sha Allah sanad markii aan joogana waa u imid wuxuu yiraahdee wali ma daawa u ciil qabtaa mase jeekin kalan kugu sameeya waxa iraada jeekin ma raba daawada mar ilaahay caafiya iraada daawadii intii aan qaatay ilaa igu caafiyo inteedii baan ku caafimaad ilaahay intii bi caafimaad ugu sii jeekin dambana igu soo marin tubo dambana ilaahay bahalkii ilaahay ma gelin sideedii baan ku raystay ma sha Allah midda labaad Soomaalida iyadu waxay taqaanaa habda dhakhtar inay ku boodaan waa wixii anay awal hore ii dilay mirgeeda ay xanuunay surka ay xanuunay gaasi waxa qabtay tiifo waxa qabtaa malaria daawada markii aan ku haboonayn gaaska ayay dhaqaatiirta wax isku budo walaaqaya dadka siinayaan taasaa dhibaatada keenaysa gaas waa inuu daawadiisa hela malabka iyo lindanaanta laga daawareegay dadku ay joojiyaan baan bahalkiin baan maxaa dhahay daawada ku haboon gaaska dadku waa inuu qaataa dhakhtarku sidii uu ii siiyay oo ugu haboonaydna waa u qaata daawo walba waqti bay lahayd waqtiga uu yiri cun baan ku cunay taamka ay lahayd baan ku dhameystiray taamka ay lahaydna dhakhtarka ugu noqonayay wa billahi tawfiiq ilaahay baa igu caafiyay ilmahayga dhamaantood kii iga xanuunsada oo markaas xanuun igala dhul dhaca waa u geeya wixii ku haboon oo markaas uu iga baarana ilaahay waa ila jiraan dhakhtar kale ma aada hal dhakhtar baan waxa la ii bixishay xaaway dhakhtarkaagi lambar nooga jir dhakhtar hebel iyo Samakaab mid lama yiraahdo xaaway dhakhtarkaagi ma lambar nooga qabatid qofkii u baahan marka oo aniga xanuunkayga arki jiray dhakhtarka xaawo baa la ii bixishay lama yiraahdo ama Maxamed Cabdi lama yiraahdo halkay Dr. Axmed lama yiraahdo Samakaabna lama yiraahdo xaaway dhakhtarkaagi lambar nooga qabo waa uga qabtaa ayaguna waxa weeye dad ma sha Allah
muslinkuna qofkii qof islaam oo dhibaataysan u gargaara ilaahay waa u gargaaraa hadday shaqaalo tahay hadday dhaqtar tahay ilaahay gargaar ka helay gargaar bini'aadanimo waa ka helay tii ilaahayna waa ka helay alxamdulillahi rabbil caalamiin waxaan ugu amaal gudana maba garanaya dhaqtarkaas ilaahay janna firdowsaha u bishaareeyo wixiisana allah u barakeeyo nambarka iyo xagu ku yaalo hoos ma ka helisaan oo ku mahadsantiin daawashadiina una muuqaalka soo socda